kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa Kahiye Media kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee Kahiye Media waxaana ku daawataan xubinta saaxiibayaal qodobada ugu dambeeyay iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay uguna waaweynaa ee kubadda cagta laga hadalhayo aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa qarka u saaran la wareegista xidiga reer Africa iyo kooxda kubadda cagta ee Lille ninka lagu magacaabo Nicolas Pepe kooxda Gunners ayaa quudareynaysa inay garoonka Villa Emirates ka soo dejisay xidiga u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lille kaas oo xil ciyaareedka la soo dhaafay qaab ciyaareed waaliya soo bandhigay kadib markii uu dhaliyay 22 gool waa ay rahdeen 20 gool ayuu dhaliyay 22 kalena uu caawiyay sida ay sheegayaan xogihii ugu dambeeyay ee laga helay ninkaasi Nicolas Pepe waxa uu qaran ahaan u dhashay qaranka dalkaas Africa sidoo kale waxa uu si weyn u daneynayaa isla markaana hore u sheegay inuu daneynayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Gunners xidigan ayaana ka soo degay garoonka ay rahdeen magaalada London ee cariga dalkaas Britain halkaas oo sida la leeyahay uu maalinta Britain ugu mariyay tijaabada caafimaadka kooxda kubadda cagta ee Arsenal 90% waxa la leeyahay xidigan waa xidig Arsenalesa wuxuuna meesha ka saaraya Wolverhampton saha oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay si weyn u daneynaysa saacada ugu dambeyn ay ka baxda markii xidigan heshay dhanka kale kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Manchester United ayaa ku heshiiyay kala bedelashada xidigaha Paulo Dybala iyo sidoo kale Romelu Lukaku waxa su'aal iska weydiinaya cidda qasaarada qabta saacada kooxda ka ciyaarta garoonka la yiraahdo masraxa riyada ee Manchester United ayaa si weyn u quudareynaysa inay hesho xidiga kooxda kubadda cagta ee Juventus ninka la yiraahdo Paulo Dybala sidoo kale Juventus waxay daneynaysaa inay isku hesho labada weeraryahan ee Gonzalo Higuain iyo Romelu Lukaku taas oo aaminsan tahay inay wax badan ka caawin karaan kooxda kubadda cagta ee Juventus Arsenal sidoo kale haddii aan u laabano waxa la leeyahay waxay ka baxday heshiiska ay ku doonaysay inay kala wareegto Wolverhampton saha markii ay heshaan Nicolas Pepe waxaana qarka u saaran in xidigaas ay hesho dhanka kale Arsenal waxay saacadaha la soo socda sidoo kale si xor kula wareegi kartaa xidigii hore ee Real Madrid Sami Khedira ninka Jarmalka qadka dhexe kaga ciyaari jiray ayaana si weyn waxa la leeyahay waxa uu la yahay koox uu ciyaar isagoo la isaga arkay isagoo iskaga baashaalaya magaalada London ee cariga dalkaas Britain Arsenal ayaana iska heli karta xidigan kubadda cagta qadka dhexe ka ciyaari jiray Real Madrid iyo Jarmalkana ka soo jabhaday ee Sami Khedira saaxiibayaal qodobadaas waa kuwii ugu dambeeyay uguna waaweynaa ee dhacdooyinka arrimaha suuqa kala iibsiga kubadda cagta haddii aad channelkan ku cusub tahay waa Kahiye Media hamugaan inaad saarto subscribe like aad dhahdo share aad la wadaagto saaxiibayaal waad ku mahadsantahay daawashadaada nabadgelyo.